haddii nolosheena aa u dabaqi lahayn ama aa u dhaqmi lahayn sidii ay u dhaqmaayeen dadkaanoo kale dabcan maysan jiri lahayn dad dadka ka dhex shaqeeya ama isku diro ama lagu magacaabo namaam ama isku diraale mausan jiri lahayn. maalin baa imaam shaafici waxaa u imaadanin markaas buu wuxuu ku dhahay imaamkii imaamow hebel ayaa wuxuu kaa sheegaya shay xun ama waxaas ayuu kaa sheegaya. imaamku wuxuu siiyey laba joos ama laba shay oosan ninkaas ka bixi karin marnaba midkood waayahay waa waajib laba shay oo kala daran. kan koowaad wuxuu ahay haddii ninkaas aad runka ka sheegaysid oo waxaas igu dhahay waxaa tahay qof isku diraala ama namaam ayaa tahay. dabcan haddii adi ahaan lagu imaan lahay amina qof aad dhihi lahayd hebel ayaa saas ku dhahay oo ku dhihi lahay isku diraalaata iga tag dabcan waa yaabi lahayd oo wax shoo lahayd. kamithli daalika imaamku wuxuu ku dhahay waxaa tahay isku diraale waa haddii run aa ka sheegaysid ninkaas. haddii si been aa ka sheegaysid oo ninkaas saas ugu dhihin waxaa tahay faasiq yani waxaa tahay qof munaafiq oo calaamadii munaafiq mid kamid laga hel ayaa tahay oo waxaa tahay beenlow oo munaafiq ayaa tahay. markii ninka saas lagu dhahay oo labadii joos oo la siiyey marna haddii oo runka ka sheegay lagu tilmaamo namaam haddii been uu ka sheegay lagu tilmaamo faasiq haddii lagu tilmaamo waa uu xishooyey kadib waa uu iska baxa asagoo ilaataa khaylsan ama xishoosan ayuu iskaga tegay meesha. kamithli daalik nin kale oo xakiim ahay baa waxaa u imaada nin marka kamithli daalik wuxuu ku dhahay sidii ninkii hore ninkii xakiimka ahay hebel baa ku caayay ama majaalista qaar ayuu wuxuu kaga sheegaya shay xun ayuu kaga sheegaya. ninkii xakiimka ahay asigna wuxuu ugu jawaabay sidii kii hore camal oo wuxuu ku dhahay haddii hebel wuxuu igu soo tuuray waran ama gaashaan igu soo tuuray gaashaankaas oo igu soo tuuray muusan igu dhicin oo muusan i haleelin yani wuxuu i dhahay ani maanan maqlin oo maanan isoo gaarin laakiin qofka isoo gaarsiisay oo inuu soo qaado warankaas isoo gaarsiiyey qalbiga inuu ku dhufto waa adiga ku dhah yani waxa anoo maqlin isoo gaarsiiyey waxa hadalkaas waa adiga adi ayaan qalbiga dhaawacday ayuu ku dhahay. haddii qofkii nagu imaadaba ama dadka ka dhex shaqeynaya haddii aad dhihi lahayn kamithli daalik ama namaamaa tahe naga tag ama isheeg faasiq baa tahe haddaan dhihi lahayn dabcan mausan jiri lahayn kuu sheekeeya kaa sheekeeya hala sheekeysan.